جامعة كامل الشافعي. annagu cambaarayn ma wadno dawladna wax kama sheegin cambaaraynna ma wadno dawladdu waa dawladayadii askarta madaxweynaha waxaba waan sharaf bay naga mudan yihiin waxaa jira kaliya wixii wax lagu qabsan lahaa ama dadka hoose ay ku noolaayeen ee shacabku uu ku noolaa ee maatadu ku noolayd ee ahaa wax wal kasta oo maaragtay waxaanu nahay dad qof kasta waa qoys danyara wuxuu ka soo bilowdaa hoos wuxuu gadaa qudaar waxa qudaarta la gado waxa lagu gadaa kaashka waxa lagu gadaa lagu bedelaa waxa la tagaysan $1 wuxuu ku leeyahay ma hayo waxay taan qofkii wax gadanaya qutul daruurigiisa caawa jawaankaas uu kala soo baxaa jawaankii wixii kala soo baxayay qofkii doonaya wuxuu doonayaa $1 kii keenaya wuxuu doonayaa $1 waa ogtihiin shacabka ee dawladdu way ogtahay dadka wax gataana way ogyihiin ganacsatadu way ogtahay kaashku wadankeenu inteen maqdabadeenu ka shaqeeya qof walba shirinka uu wataa wuxuu ka shaqeeyaa meesha uu degan yahay maadaama uu meesha uu degan yahay ka shaqeeyo ma aha wax socodeen maaragtay shaqadeeduna waxay tahay khudaarta waxa weeye khudaartii oo aad iyo aad maanta sixir barar aad iyo aad weyn ka jiro waxa weeyaan waxaanu hadii la isugu soo banaan baxnay oo maanta aan u soo banaan baxnay shaqadeedina waxa yaray u joojinay waxa weeyaan in maanta hadii la kuroyaa maamulka mas'uuliyadda wixii wax garada wixii hadii la kuroyaa ganacsatada in ay ka tashadaan in arimahooga oo maanta hadii la kuroyaa sixir bararka iyo ummadda halaagay ee maanta nin walba albaabka u xiray in hadii laga wada tashado oo la isku wada yimaado $1 milyan iyo hadii la kuroyaa $1 milyan iyo 600 wixii wax lagu iibsanayay iyo wixii hadii la kuroyaa wax lagu gadayay iyo wixii ummadda wax laga gadayay aan ka cabanayna waxa weeye waxaanu nahay annagu dad masaakiina oo qudaar gada qudaartiina $1 baa lagu keenaa wixii aan wax gadnaana waa kaash dawladda sharafta leh cod dheer iyo cod gaaban waxaanu ku maqashiinaynaa bointiga koobaad $1ka inay dib u fiiriso talabaad maxaan ku dhahay dadku way isku dhex jiraan dadku dad baa masaakiina oo koobka shaaha bay heli karin dad baa maxaan ku dhahday haye dad baa ixaaqa dad baa xamaala dad baan $1 bas oo galin marka nin kasta waxa la yiri $1 ku bedel wixii lagu bedelay haduu $1 noqday ase ay iskeebi weyday waxaanu dawladda sharafta leh ka codsanaynaa oo cod dheer iyo cod gaabanba ugu qaylinaynaa inay ka shaqeeyaan ganacsiga waxaana dukaanleyda ka iibsata suuqa qudaartii suuqii lama goyn karo shay kasta dhabal buu noqday waxaas oo dhan waxa uu wacan waa $1kii oo samada maraya koonfurta $1 waa ka jamaya koonfurta $1 waa ka jamaya boosasana waa ka qaali marka shaygii adeebsan lahayd kiiladii basbaadka waa 100,000 kiiladii yaanyada waa 50,000 dadkiina waxa iibsan karaan male xaafadihii marka dukaanley baana dukaamada markaan u qaadno wixiiba wuxuu noqonayaa qof walba wuxuu sitaaba irsiq maaha wixii lama iibsanayo dadkii ma goynayaan suuq la goyn maayo wax la iibsadaa la leeyahay wax la sitaa la leeyahay marka dawladda sharafta anagu mudaharaadka nabadgelyo weeye wax dhibaato ma wadno waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato $1kan qaaliga ah oo isu miisaanto dawladaha kale maamulada kale ka shaqeeyaan nabadgelyo $1kooda iyo xasilintooda marka waxaan ka codsanaynaa inay $1kan naga farageliso oo nimankan $1kan naga qabato dawladda sharafta leh iyo maamulka xildhibaanada maxay ahayd madaxweyne ku xigeenka waxa laalay wixii wax garada baarlamaanka waxaanu ka codsanaynaa sidaan ay idin la muuqato nama wadaan maxay ahayd tayfooda nama wado wax dhibaateeya nama wado sidaan dhulka u dadnay ee alaabta u dadnay waxa weeyaan hadii la leeyahay kiilada yaanyada ah $1 ha lagu gado waxa weeyaan ama maxay ahayd kaash lagu gado kaashkii iyo $1kii wax isu qaadan karay noqon waayeen waxa noqon doontaa hadii wax laga qaban waayo in kiilada yaanyada la yiraahdo $2 tabarada la yiraahdo $1 iyo tabasasha la yiraahdo $1 waxa weeyaan inagiina dadkiina $1ka ma sito waa dad masaakiina Puntland halqiga ku dhaqan waad la socotaan wax la soo koobi kara maaha dadku waxaan waxaysanba waa leeyihiin waxaanu ka codsanaynaa annagaan dhibaato wadin inagoo dawladayada sharafta leh raalli ku ah inagoo madaxweynaha iyaga iyo ku xigeenkiisa iyo baarlamaanka iyo odayaasha cuqaasha waxaanu ka codsanaynaa culimada diinka waxa laalay wixii wax kala garanaya waxaanu ka codsanaynaa in dadka dib loo eego waxaan leeyahay maamulka Puntland dadkan shacabka halkan tuusan waxa weeye dadkii madaxda waa haydeen dadkii idinka intaabacay weeye dadkii caleemaani ruuxay weeye
maanta cabashada in wax laga qabto oo wax meel kale oo yani taaban karo laga qabto waayo waxay ka dacwoonayaan ama u soo banaan baxeen ama u mudaharaadeen waa dowladooda cid kale ma mudaharaadeen ama Mareykan ama Jarmal ama maamulka Puntland bay mudaharaadayaan marka cabashada waa in wax laga qabtaa waxa weeye doolarka haduu 26 marayo saadamana uu tagayo 3 milyan waa dhibaato reer baa $50 qaata $50 haaf bariis oo gooyo marka dhibaatada weyn baa dadku anu waxaan aaminsanahay maamulku inay yihiin koox gaar oo aan ninna u danaynayn oo iyagu jeebkooda kaliya ku xisaabtamaya saasaan u arkaa haddii jeebkiina ku xisaabtamayn shacabka u danaya cabashadooda wax ka qabta wax la taaban karo oo la arki karo berri ama saata maanu dareenno ama aanu aragno assalaamu calaykum aad baan cabdiweli waa salaamaya waxaan u sheegay cabdiweli mujtamaca intii aad timi lacag cusub baa la sameeyey waxa weeye sicir barar baa abuurmay lacagtan aad urursanaysaan ee warshadaha iyo makiinadaha u samaysateen nagadaaya bilaa أنا حسن نورجيسود وحنا هاي ديجان كدتك ولا شيء غير بدلان بانهاي ساك عبشة يلا وحي كوسا ليسنت هاي دولار كعديسة وحي كوسا ليسنت هاي طبقات دي صدق دي طبقات باكري طبقات دي هو طبقات دي دحبا لبضوا بابا بيتهاجيه طبقات دي سركلية شقينيسة هذا بقى وحنا وش جينا غير بدلان أما مدحوينها هذا أما مدحوينك وحجانها هذا أما برلمانها هذا أما وزيرها هذا وحنا عبشة يلا كوسا لينا إن وحقبت أنو أرجنه وأنا لك دايو أنا قبتين تا دولار كلكو قرنا أيه محن كورة هذا إنك قادنا أيه وش عشورة قادنا أيه إنه ضدك أوتره شعبك أوتره إن لا أوتره وأنا عبشة يلا كوسا لينا وهذا أركتانو أنت سوقف غير بدلانه ما أنت وحي أصابحين وحاجر ودبت تابتي بيركايا مقالة وابندان تاي بري وابندنا نيسا سادم واحدان وحلقة قبل وابندنا ويا محانو قضينا بقى وحانو إصلاح يسنا مجران وحانو محانكو إرادة أواد كرا مجران وإسكو بابانا كوي سري كوي وحمانو الرعين وعامانت مظاهرة علي برشادي كان عصفتها يقروا والبله أيام مظاهرة علي cabasho badan bayna soo jeediyeen cabashadaasoo waxay tahay waxyaalo badan bay ka hadleen anna inaan goobjoog ahay ayaan xaqiijinayaa anigoo ah guddoomiyaha ganacsiga haweenka ahna guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka bari ganacsigaanu waxaanu wadnay haddaanu nahay haweenka 38 sano dawladdii Soomaaliya baa noogu dhacday ganacsato xor ah baanu nahay dawladda cashuur baanu siinaa waxa dhibaatada muujiyay ganacsigu wuxuu iska noqday foodada uu noqday dawladdii hore sida gabdhuhu sheegeen markaanu mudaahiraadno ama nala caburiyo dawladdu waxbay ka qaban jirtay maamulkeena kan hadda dhismay fulin dacwooyin badan aanu qabno baanu geynay wax naloo ka qabta weli ma jiraan haddaanu haweenka nahay haweenku cabasho badan baan muujinaynaa doolarkii oo kacay doolarka waxaa la socda ka raashinka gadaya maanta doolarku intuu yuu kugu dhufanayo kan qudaarta keeno oo baabuurka ka dejinaya doolarku maanta wuxuu yuu kugu dhufanay kan caanaha keena doolarku wuxuu yuu kugu dhufanay aniga ma doolar baanu leenahay mise lacag Puntland samaysatay baanu leenahay